xukunkii aad ku xukunto ayaa lagu xukumi doonaa qiyaastii aad qiyaastana waa lagu qiyaasi doonaa weligaa si qaldan dadka u qiyaasi halkan waxaan ku haynaa hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo magaceeda Queen Caasha hooyadaana waxay ka walacsantahay ama ka ooyeysa bariyahan oo dhan dhibaato soo wajahday wiil laga qaatay maaha gabadheeda yaa hooyo walwalaysa gabadheeda ma jirto laakiin hooyadan waxay walwalaysaa wiilkeeda hooyadan waxay ku aragtay calaamado aysan hore ugu arki jirin wiilkeeda iyo isbedel jirhaaneed oo wiilkeeda ku imaaday dhaqan ahaaneed oo wiilkeeda ku imaaday hooyadaas maxay ku soo aragtay wiilkeedii yuusa yahay ilmaheeda iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ilmaha laga wada qaatay dadka ilmahooda la siiyo qof kasto ilmo laga qaadan doonaan ilmihiisa la siin doonaa balaayada intiisa soo gaarin aan iska moosa inaan cilmi u yeelanay iyo garasho u yeelanana wax wanaagsan way ilmaheena meesha ku dambeyn doonaan haddiina laga qaato iyo kuwa la qaatayba dad iyagu u baahan ma kula tahay qof ilmo haysta inuu ilmo kale u baahan yahay waa may gabadhan masaakiinta marka dhibaatada cunugeeda la gaarsiiyay aan isla fiirino kadibna waxaan idin sheegi doonaa qofka tiftifnimada ilmaha xaqooda ah PhD ku qaatay qofku yahay iyo masaxba iyo makhaladba intaba in PhD lagu qaato tiftifnimo aan isla daawano fiidiyoga walaasheen Caasha Queen I don't know عدالة درا دريميا عدالة درا وحياة خلال المسلمين وحان معقول ما هندي انت هذيك قرني يعني انا هذا تاويل كيف يعني ما تصير قاوي تنقاوي لك صار في يوم كدوام فاهم ستحكي سي نقدر يوحو ياي دي حالها ومره فاهمسا في يوم يدواها استا انما تصير لكن أيك واتس محمد شيء وكان ويلكي سان وإكاسان ونقضي وحاول كل تعلب علىك شيء جيبه وحاس ضمي هذا كله مجرتني كل ري على تحمل مدو حوالينا فانتين ما قدو كان كتير ولا واحد ولا بقسمين لا يا من أنا شرعي قرنين وحيابنا ما أنت لقى حق عليا إن دي حقي أنا أجين وصار وحول بلا يقسمين دي حقي أنا عكم السنة بعد كرتم فاهمسا لكن إن شاء الله وندي وفهم دانا وحبوا يخلطون دانا ما أنت قرنين وأسكت أنا برتو حقيقة لا تسلم فأنت سودعي أنت walaasheen waxay noo sheegtay ilmaheedii inay u cabsanayso cunugeeda ku aragtay waxyaabo badan ma daqaray ku soo aragtay nooma sheegin waxay tiri waan aamusnaa waan ka qarinaya laakiin wiilkayga waxaan ku soo arkay tiri waxyaabo calool xumo ah waxaan ka duubay tiri fiidiyoo maxkamadan la aadaya sharcigan aan ku wanaagsanaaday ahayd inaan bartay ahayd ani hadda waxa Soomaalidu waxay tiraahdaa nabarat filaysid maxay ahayd ii dhamaystira nabarat filaysid lagama nax wax saasoo kale ay jiraan Soomaalida macnaha waxa filaysid wax weyn walwala ku haynayso cunugaaga laga qaatay horta waxay ahaan lahayd inay aqoon u leedahay dadka ilmaha qaata waa dadka aan ilmaha lahayn dadka aan ilmaha haysan sababaa jira ilmo la'aan ay ku noqdeen dhinaca positive ka fiirinaa waxa leenahay qofkaas xag rabaani ah wuxuu u noqon waayo qof madalays ah buu noqdo qof madalays ah qof oo dhali waayay oo ugxanta ilmaha aan lahayn buu ahaa ilmo la'aan baa ku dhacday saasoo marka ilmaha dadka kale ku caasharaya oo liiska ugu jira inuu ilmo helo ku kale waa dumar laga yaabaa waqtigii bay ka gaari weyday ilmo ma dhalin كونين هادو دونا سلفكسو وحسكا نقدين nin aan ilmo rabin marka dadka ilmahoodii ama ilmaha dayacan ay u baahan yihiin dawladii marka way isdiiwaan galinayaan isbitaalada dadka jirtay dad iska diiwaan galiya say u helaan xubin looga bedelo waxa jira meelaha ilmaha hay'adaha xanaaneeya dad saf ugu jira ciyaal waalidkood xanaanaysan waay in ay wareejiyo marka dadkaas hadda adiga cunugaaga maxaad jeceshahay noqdo waxaad jeceshahay inuu noqdo sida adiga aad tahay aad jeceshahay cunugaaga inuu noqdo ood ka dhigaysaa qofka ilmahaaga qaatana ilmahaas wuxuu aaminayaa ilmihiisii oo kale wuxuu ka dhigayaa sida asaga uu yahay waxa uu jecel yahay hadduu ahaa mid qoomaluud ah wuxuu jecel yahay dadka dhan inay qoomaluud noqdaan buu jecel yahay soo garatay ma hada cunug wiil oo nin qoomaluuda ka qaatay
ilmihii guriga ku nool yahay wuxuu arkayaa noloshii ninkii aabbaha ka dhiganayso u nool yahay isna sidaas u noolaanaya asagii baana kaxaysanaya hadda meel geysay hadda meel la aaday oo hadda meel la tegay hadda warkum ku dhaca si fiican hadda may fahantay okay aan kasoo noqonna marka gabadhan waxay tiri sharciga inaan barto umalayn maayo sharcina baranaysa maxaa yeelay waxaa ku jirta vacation iyo xaggaan kusoo duba video iyo make up la isku make up shaqo make up ah socota xafladayn socota gobol u safar socota wiil wax la soo dub socota goorma sharci barane uma soo jeedida qof u soo jeedo in wax barta rabo ma tiiri dadka wax ka qaatay qof rabo inuu maaragtay la dhigto oo de ma tiiri wali waa dhunsanta oo darada la kulmayso cunuga aad tukaynaysa feer ku soo jeedin kaso uma diyaarsanid marka mariyaad sharci ku diyaarinaysaa waa inaad iskuul gashid waa inaad fariisatid waa inaad wax baratid waa inaad integration adag aad samaysid aad baratid xaqa aad leedahay lawyer aad samaysatid waxyaaba badan waxyar idin sheegaan ninkan waa garanaysaa meesha ka muuqda master shooting waad garanaysaan dadka u maxkamadaynayo waa Arsenal ama kuwa wax dilay marka uu ku soo dhacayaan dadkan Arsenal inay yihiin ama qof wax dilay u yahay waxaad garanaysaan meeshaan cawaaqibkan qofkii halka taga cawaaqibkan consequenceskan wixii sababay waad garanaysaan marka waxaad leeyahay malaha waa ISIS waa qoliyay isha kuwii Arsenal waay ama qof wax dilay waay waad garanaysaan laakiin qof ilma laga qaatay garanaysaan sababta looga qaatay dhibaatadan haysta waxay tahay qof ilma laga qaatay ma garanaysaan sababta looga qaatay sida u garanaysaan nimankan maxkamadda saaran sababta loo saaray saa u garanaysaan qofkii ilma laga qaatay sababta looga qaatay garan maysid ma jirto ilma la qaato waalidka oo qalad gelin ma jirto ilma la qaato waalidka oo wax qalad gelin hal qalad baa laga qaadi karaa 100 qalad waa laga qaadi karaa laakiin ma jirto ilma la iska qaaday hadii ilma la iska qaadanayo dee qofkii ilmo dhashay waa laga qaadan lahaa qof loo deyn lahaa ma jiro waalidiin badan ilmahay dhaleen oo ka badan carradaas weligoodna aan ag marin baa jira barbaar oo ay u korona u weynaadeen oo ay noqdeen maanta ayaga lafkooda family kale tahay noqdeen waxa looga qaadan waay maxaa yeelay qalad maysi gelin aan barana marka sida nimankaan aan u garanayno ninkaan dadka u maxkamadaynayo saan u garanay dambigooda markaba dadka wax laga qaatana yaana ka dhigin malaa'id aan u sheegna qaladkooda si kuwa ka dambeeya ay isaga ilaaliyaan qaladkaas okay haddaba yaa way qofka PhD ka qaatay tiftifnimada gabadha ka qaatay waatee halkaan ku haya magaceedii ayada halkaan ku haya I don't care magaceeda waa website wiila saaxiibanahay ayaa ii soo diray wuxuu yiri niyo sheekadan faniga ah dhageyso qofka Soomaali ma ii soo diray okay waan dhageystay waa gabar Soomaaliyeed PhD ayay wax ka diyaarisay tiftifnimo xaafadaha inay ka soo warantay bes Soomaalida xaafadaha ma kuwa Soomaalida kaliya ka soo warantay haddaba marka inay ka soo waranto maxalaal ba maxaraan ba masax may ku saxan tahay waxaas oo ku sheegi doona balse I don't know hada garanaysid luqadan hada garanaysid waa okay luqadan hada garanayna ana ku translate garanaya hawlwalin Soomaali baan kaaga dhigayaa soo fahantima hada luqadan fahanteena kulli gabar magacaada waa iska garanaysaa ayaan Yaasiin Abdi wax Soomaaliyeed weelaan dheera soo xagaratay marka waxaan sameynaynaa marka waa ku turjumayaa saa u fahantid okay waa website kan hada rabtid waa booqan kartaa waxa la yiraahdaa magaciisa website kan www.Sentinel I think waxa ka imaaday Sonyulan oo kale topic ka imaaday oo ah waqooyiga ama koonfurta wadanka wax soo kala ka imaaday marka adiga waa www.sentinel.deco Soomaaliga ma fahantay website-kaas kala sheekada dhanka dhageyso street party waa hadda party ugu horeeya soo dhacday party ugu horeeyana waa dhageystay marka qaybta ugu muhiimsan oo gabadha PhD-geeda ah ku fasiraya iyo waxyaabaha ay qabato profession-keeda okay all right haya aan ku aqriyo dhageyso marka ay turjuman waa ayaan Yaasiin Cabdi baa la yiri markii aan turjumay horey noogu sameysay Yaasiin Cabdi oo sheekaynaysa waxay horey noogu sameysay sheekooyin halkan Setland ama bariga ama koonfurta wadanka oo ay ugu dambeysay waxay dhamaysay oo ay difaacatay macna sanadka la soo dhaafay baa halka ku qoran halkan Soomaaliga uu jijirsan sanadka la soo dhaafay waxay difaacatay baa la yiri shahaadadeeda PhD hadaba maxay ku difaacatay
shahaadadii gabar Soomaaliyeed PhD qaadatay waa PhD. Okay, jaamacadeeda Roskilde waa isla gobol magaalo kamid ah maxaan ku rahay Jutland ama Yuland inta taqaana waa taqaana intaan qolna ayada ma sheegi karno maxaa yeelay ma rabna inaan sheegno qofka meeshuu degan yahay. saan Roskilde waa sheegnay jaamacadeeda laakiin inaan inta taqaana intiina aan garanayno aan u sheegno ma doonayno. marka Jutland okay, waxaana cilmi baaristeedu ay si sax ah ugu saabsan tahay wixii ku dhacay Soomaalida iyo cilmi baaristeedu ku saabsan. haddaba maxay tahay wax Soomaalida ku dhacay waad isweydiinaysaa soo ma? okay, wixii ku dhacay Soomaalida la waayay, Soomaalida waddan ka cararaysa oo ilmaha la sifakanaysa. maxay ilmaha la sifakanayaan? sheekadaas waa sheekada dhan. kadib markii ay difaacday PhD-da oo ay bilowday okay, kadib markii ay difaacday PhD-da oo ay bilowday in ay ka warbixiso waxa ay ogaatay, eedadeed ayaa dhinac u jiidatay. macnaha waxay difaacatay shahaadada PhD oo ku qaadatay tiftifnimada xaafadaha ka soo waran. xagee u socdaan ciidan maanta? ticket baa u go'an, bishaan way tagi rabaan, ilmaha may la bixi rabaan, gabdhaha ma la soo gudaa, niman ma lagu soo daraa, ciyaalkii miyaa maaragtay ay ka baqday in laga qaato. macnaha tiftif sheekadeeda taasay ahayd PhD dhan ku qaad. haddaba marka inaa waxaa ka shaqaysid ma sax baa? aniga waxaan leeyahay waa sax inay ka shaqayso waxaas. maxaa yeelay qofku qalad hadduu arko unbuu gudbinayaa. hadduu wax qaldan arko, haddii uu arko odagiyo ilmihii laynaya, odagiyo duqdii dilaya, duqdiyo ilmihii laynaysa, ilmihii oo gaajaysan waxba la siinayn, ilmihii oo aradan, ilmihii oo waxba baranayn, ilmihii oo laynayo, ilmihii oo dhibaato lagu hayo, macnaha wax ka baxsan sharciga waddanka, ilmihii oo lagula kacayo in la sheego waa sax weeyaan. maxaa yeelay waalidka waxaa jira qaar caasiyaha jira. marka kuwa caasiga ah in dowladda loo sheego waa xaq weeye saan isleeyahay. haddii qofku professionkiisa yahay oo shaqadiisa ay tahay, maaha qof kasta inuu sheegi karo, laakiin qofka hadday tahay shaqadiisa tahay in uu community la isu wacyigeliyo oo isu sheegidda laba waay. marka in qofkii dowladda u sheego iyo in qofkii si shakhsiyan kuugu sheego oo community-ga ilaa community-gu kulamay leeyihiin isugu imaadaan, fiir jaaliyaday leeyihiin way isugu imaadaan. soo xagartay ma aniga wax badan arkay jaariyadaha Soomaalida soo imaadaan, laakiin isuma sheegaan inay ilmaha ilaaliyaan iyo inay ciladahooda dhinaca ilmaha inay kama wada hadlaan wax badan dhinaca ilmaha. waa laga yaabaa inay ka hadlaan aan samaysano wasaan jaariyad waxbarasho ilmaha kan laakiin waxyaabaha dowladdu ay ku haysato inay sheegaan lagama yaabo. marka gabadhan waxaa leenahay profession fiican wey. professionkeeda hadday waxaa la rabaa kaliya inay run ka sheegtaan raba shaqadeeda. PhD-ga waxaan leenahay bahasha PhD baa lagu qaataa la socdo. gabadhii waxay lahayd marka intaan kusoo koobaynaa videoga maanta iyo PhD-ga gabadha ku qaadatay tifnimada. inta video lamida ku kulmi doona sidaas nabadgelyo. YouTube channel-kaygana subscribe saar.